kulanti haboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Saacad Alaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogay u dambeeyay guud ahaan geyga Soomaaliyeed muuqaalka inta daawanaysa waxaan ku soo gudbin doonaa taliyihii hay'adda nabad-sugidda ee sirdoonka ee degmada Balad Xaabo oo dhabarka ka toogtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hubkii sidoo kale gaadiidkii dagaal ay ku wareejisay dawladda la sheegay inuu gacanta u galiyo Jubbaland yaa ka dambeeyo arintaasi ka shaqeeyay macluumaad arintaasi ku saabsanaya muuqaalka ku soo gudbin doona ma dhaba in Cabdirashiid Janan uu si buuxda u baneeyay garabka Xasan Sheekh Maxamuud hubka la sheegay in lagu wareejiyay xagee ayuu ku dambeeyay kaya maxaa ay ka dhaxday arinka Cabdirashiid Janan muuqaalka iyo ku faahfaahin doona qodobada kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona waxa ka mid noqonaya ciidanka Itoobiya oo hubkoodii kala baxay magaalada Baydhabo Cabdirasiis lafta gareen ay garabkiisa oo qarka u saaran in mar kale ay dib ay ula wareegaan gacan ku haynta magaalada Baydhabo xogay u dambeeyay halkaas naga soo gaaraya iyo muuqaalka kugu soo gudbin doona hadii markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambalelka nufroosay ku soo gaaraa muuqaalada kale xiga hadii subscribe inoo tahay inoo share garay like inoo saarso oo gaar asxaab badan wad ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabno wararka laga helayo magaalada Baydhabo oo ah xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inaga soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in halkaas ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo aad u culus iyadoo wararka sidoo kale ay tilmaamayaan in ciidanka Itoobiya ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo ay kala baxeen halkaas qaar ka mid ah hubkii iyo sidoo kale saanadii military arintan ayaa dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan xaaladda amniga iyo sidoo kale madda siyaasadda ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo ka bixitaanka ciidanka Itoobiya ayaa ku soo beegmaysa xilli wali ay jirto xiisad u dhaxaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale garabka Cabdirasiis Xasan Maxamed lafta gareen waxaana sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in ciidamada cad u ah Cabdirasiis Xasan Maxamed lafta gareen hore loogu soo tabiyay inay dhaqdhaqaaqyo military ay ka sameeyeen gudaha magaalada Baydhabo kaas oo mararka qaarkood xataa sababay in dagaal toos ah uu dhaxmaro ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo sidoo kale garabka Cabdirasiis Xasan Maxamed lafta gareen ee dhaqdhaqaaqyada ka waday gudaha magaalada Baydhabo waxa hadda soo baxaya cabsi laga qabo in hadii ciidanka Itoobiya ay si buuxda uga baxaan gudaha magaalada Baydhabo cid gacanta ku dhigi doonta iyadoo la saadaalinayo in garabka Cabdirasiis Xasan Maxamed lafta gareen ay dib ula wareegi doonaan gacan ku haynta magaalada Baydhabo sidoo kalena halkaasi uu ka dhaco dagaal dhiig badan ku daadan kara maadaama ciidanka Koonfur Galbeed si aad uga soo horjeedaan garabka Cabdirasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayna taageersan yihiin hogaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe shacabka Baydhabo ayaa walaac ka qaba in xiisada siyaasadeed ay isbedesho dagaal hubeysana maadaama magaalada ay hore ugu dhaceen iskahorimaadyo u dhaxeeyay kooxo iska soo horjeeda warbixino hore ayaa sheegaya in xaaladda magaalada ay marar kala duwan ay kacsaneed kadib markii ciidan ka taawacsan Cabdirasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo dhowr jiha ah dagaal ay kaga qaadeen gudaha magaalada Baydhabo su'aasha ugu weyn ee hadda taagan ayaa ah maxaa ka dambeeya dhaqdhaqaaqa ciidanka Itoobiya muxuu yahay in dib u habeynta ciidanka caadi ah mise waxa uu xiriir u leeyahay xaaladda siyaasadeed iyo dagaalka ka taagan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya su'aalahaasi ayaa kuwa isweydiinayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale qaar ka mid ah shacabka ku wada in dheer garadka ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo sidoo kale waxa isha lagu hayaa halka ay ku dambeeyaan hubkii sidoo kale gaadiidka ciidanka Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si buuxda ugu wareejin doonaan goobaha ay ciidamada ay ka baxeen shacabka Baydhabo ayaa hadda wajahaya cabsi iyo sidoo kale hubinti la'aan waxaana muhiim ah in dhinacyada siyaasadda iyo sidoo kale amniga ay ka fogaadaan talaabooyin kasta oo magaalada Baydhabo ay ku keeni karto qalqalqalin amni waa sida la isla dhaxmarayo ama bay isla dhaxmarayaan shacabka magaalada Baydhabo ciidamada Itoobiya ayaa dhawaan baneeyay gacan ku haynta degmada Buur-Hakaba iyadoo hore loo sii saadaaliyay in ciidanka Itoobiya sidoo kale ay ka bixi doonaan gudaha magaalada Baydhabo dhinaca kale waxa jira walaac laga qabo in ciidanka lafta gareen isku dayaan in ay dhaqdhaqaaqyo ay ka sameeyaan gudaha magaalada Baydhabo taasoo sababi karta in ay kala wareegaan Aadan Madoobe gacan ku haynta guud ahaan magaalada Baydhabo wixii xogay qodobkaasi ku soo kordho muuqaaladeena xiga ayaad ku daawan doontaan dhinaca kalena
wararka naga soo gaaraya magaalada Beled Xaawo ayaa sheegayaan in heshiis uu dhaxmaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale taliyaha hay'adda nabadgelyada ee degmada Beled Xaawo ee dowladda federaalka ee Soomaaliya u magacaabay Cabdirashiid Janan sidoo kale Axmed Madoobe ayaa horay u ahaa kuwa saaxiib ku ah hal aragtina lahaa isla markaana si aad ugu soo horjeeday dowladda federaalka ee Soomaaliya balse muddooyinkii dambe uu soo kala dhaxgalay khilaaf aad u culus kaasi oo sababay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu dambeyn Cabdirashiid Janan ay ka soo horjeediso garabkiisa aadan Madoobe raahday Axmed Madoobe isla markaana ciidamo fara badan uu kala goostay Jubbaland arintaasi ayaa waxay dhalisay in khilaafka u dhaxeeya Jubbaland iyo sidoo kale Cabdirashiid Janan uu noqdo mid cirka isku sii shareeray wararka ayaa waxay tilmaamayaan in arintaasi amaba ay dib u soo laabashada amaba aragtida ee bedeshay Cabdirashiid Janan ay ka dambeysay dowladda Itoobiya gaar ahaan hay'adaha nabadgelyada warar soo baxaya ayaa sheegaya in Cabdirashiid Janan sidoo kale Axmed Madoobe dhowr jeer hore ay ku kulmeen gudaha magaalada Nairobi kulankaasi oo ay garwadeen ay ka ahaayeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan Kenya iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabadgelyada ee dalkaasi waxaa la soo tabinayaa in saaxiib amaba heshiis ay dhaxdhigeen Axmed Madoobe iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka ee degmada Beled Xaawo waxaa sidoo kale la soo tabinayaa ama wararku ay sheegayaan Cabdirashiid Janan ciidankiisa iyo sidoo kale hubkiisa inuu ku wareejiyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inkastoo xogtaasi aan si rasmi ah loo xaqiijin karin balse warar la dhaxmaray ay sheegayaan saacadaha u dambeeyana waxaa la filayaa inay ka soo muuqdaan baraha bulshada iyagoo ku dhawaaqaya mowqifkooda ku aadan dowladda federaalka ee Soomaaliya raadkii shalay Kaamboni wixii ka dhacay Kaamboni tuuba maanta laga rabo Puntland ay ka dhacdo oo aan laga fakaraynin war dadka Puntland degan waa kuwii shalay dowladnimada dhisay dhaqan bay leeyihiin beec ma galaan kala tuur ma galayaan jimcaalaha la geenayo jimcaalaha la magacaabaya waa jimcaalihii raas Kaamboni muxuu kaga bedelay absolutely waxba kaga bedelay reer Puntland whatever la sameeyo ma aqbali doonaan kalmadooda ku oran doonaa in maanta xamar intii laga soo duulay la ciidan baan idin dhisay tusaale baan siinay dagaal baa ka socday Daesh lagu hayay dowladda federaalka hal gorado rasaas inay u geysay iska daayay waxay diiday permission-ka diyaaradii dhaawac lagu qaadi lahaa in la diro ogolaansho aviation ku siiyo waa kuwa dhaawac qaadi lahaa waxay u taraysaa waa maanta jimcaalo rasaas qaadiyo goobdaba baan ka dejinaynaa xabadaan qaadayna they do for what qof kasta oo reer Jubbaland oo u hanqal taagahayo inuu mansab Jubbaland ka qaato war ana wasiirka amniga ku tanaasulaya emow madaxweynaha daarto waqtigiisa sug wasiirka kale hadaata emow wasiir baan rabaadhe dawladdan rabaadhe soo marqaab iyo system u emow laakiin ha u ekaanin qof awood wax ku doonayo ha u ekaanin qof aflagaada wax ku raadinayo ha u ekaanin qof dhaliil wax ku raadinayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin khayr baan idin rajaynayaa waxaan leeyahay Soomaaliya meelay joogtaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha guuleeyo oday baan nahay soo shaqeeyay 70 jir ah inaan nastaan rabaa inaan shaqeeyo ma rabo laakiin waxaan rabaa wiilasha Soomaaliyeed oo maanta ardunka ah in la helo halyey usha u qabto oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan isku duwo waa mahadsantihiin haddii aad daawato muuqaalka dhameysatay wax aragti kaaga baxayna warab qaybta faalada haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhagan balaalkana fursi ay ku soo gaara muuqaalada kala xiga haddii subscribe inoo tahay inoo share garay lagina saar soo gaaro saxab badan wad ku maansantaa daawashadaada